goordhow halkan waxaa ka bilaabi doona tartan dhex mari doona ciidamada kala duwan ee Soomaaliland oo noqon doona markii ugu horeysay ee uu tartankaasi dhaco waxaana uu dhex mari doona xubno ciyaaryahanada oo kala matali doona kooxaha ciidamada qaar ka mid ah ciyaaryahanada tartankii ka qayb gali doona iyo sidoo kale xubno ka mid ah tababarayaasha ayaa ugu horeyn aan weydiinay dareenkooda iyo rajada ay ka qabaan tartankani bismillaahir rahmaanir rahiim oo dhawahay maanta insha Allah billahi kariim waxaan rajaynaynaa inaan guul fiican ka gaarno anigoo ku hadlay magaca ciidanka booliska gaar ahaan sportiska qaybta orodada aad iyo aad waan isku diyaarinay insha Allah waxaan rajaynayaa guul fiican inaan ka gaari doono insha Allah guul fiican baan rajaynayaa horta laba link ma qorisa leeyahay guul iyo guul daro horta waan soo galay waxaan matalaynaa horta wax yar maaha waa ciidan insha Allah kii guuleysta horta waa baahdeen cid kale maaha waa ciidamada dhexdeedina maanta guul loo baahan yahay anagu maanta matalayna calanka dalka asluubta guul aad u weyn ma rajaynaynaa anoo ku jira tartanka 400 insha Allah waxaan rajaynayaa ciidamadaydu soo guuleystaan oo guuleysto waa maalin runtii qaranka Soomaaliland guul oo runtii farxad badan oo farxad iyo maartay runtii aan aad ugu faraxsanahay maanta ciidamada kala duwan ayaa ordaya runtii waan soo dhaweynaynaa waa ciidamada guul u tahay insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo laakiin kulli anigu ciidanka ilaalada madaxtooyada ayaan wataa oo maartay orodyaanada ku ordaya marka runtii anagana guul iyo farxad bayno tahay kasta anagu aan dadka u sii dhaxayno oo runtii madaxtooyada tahay mid dadka iyada u dhaxaysa laakiin haddana insha Allah orodyaanadaynu waxaan aad u rajaynaynaa inay maartay guul fiican keeni doonaan intaasi ka bacdi waxa si rasmi ah u bilaabay tartankan oo furay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland waxaana furitaanka tartankaasi ka hadlay wasiirka iyo sidoo kale qaar ka mid ah agaasimo waaxeedyada wasaaraddaasi waxaynu halkan maanta u taaganahay inaynu furno tartamo orda oo iskugu jira kuwa dhaxa iyo kuwa gaagaaban oo runtii socon doona muddo 4 cisho insha Allah ordadani waxay soo gabagaboobi doonaan maalinta Salaasada soo socota insha Allah biidilaahi kariim marka bulshaduna sida ha ogaato waxayna noqonayaa kooxii ugu horeeyay ee dhinaca ordada waxaana siyaasaddaasi fuliyay wasiirka garab jooga boss mire iyo runtii xiriirka ciyaaraha fudud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyarada waxa leeyahay maanta waxaad ku xisaabtantaan ordada inaad ku xisaabtantaan in record fiican ku orodaan oo wax weeyaan tababarkiina kor u qaadaan insha Allah taala marka wax weeyaan anagu dadaal baan gelinayna insha Allah taala sidii aan dhalinyarada geeskan Afrika imka Djibouti way ka qayb galaan wadannada kalena si uu geeyay lahayn dadaal xoog leh ayaan sameeynaa insha Allah taala sida ogtii ordadu oo waxyaabaha muhiimada u leenahay wadan ahaan iyo tuuyo badan oo Soomaaliland oo taqaanaan ciidamadana waxaan ugu soo kordhinay barin iyagana laga baaro ciyaartooyo heer caalami noqda oo gool wanaagsan keena waxaan ka mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo siyaasad ahaan ugu hogaaminaya inaanu qabanno dhammaan ciyaaraha kala duwan naguna taageeray iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda faafinta ee kalaafka ugu tirinaysa waxaan kaloo halkan u mahadnaqayaa madaxa ciidamada iyo hogaamadooda ciyaaraha oo sida wanaagsan u soo diyaariyay dhalinyarada ciyaaraysa waxaan yaraanka ka dhiirigelinayaa dhalinyarada orodyahanada oo orodku bilaabi doono orodku 4 nooc bay sida laydin sheegay waa 400 mitir orodka kalena waa 800 mitir ka saddexaad waa 1500 mitir ka afraadna waa 3000 mitir insha Allah ساكالما وغوري وقترتم حيرنا وريو توبي تريا waxaa xusid mudan in tartankana ay ka maqnaayeen ciyaaryahanadii matal lahaa ciidamada damdamiska Soomaaliland waxaana ay mas'uuliyiinta wasaaraddu noo sheegeen inay ka cudur daarteen markii ay waayeen cid uga qayb gasho sida hadalkooda u dhigaan TV-ga News aad iyo aad salaamaya iyo khadar runtii iyo kamarmaankaba su'aashaadna weydiisana waa su'aal aad iyo aad runtii kulay bulshadu baa isweydiin lahayd ciidanka damdamisku waa ka cudur daateen orodkan waxay yiraahdeen ciyaartoyna oo qayb gala ma haysano sanadka dambe ayaanu ka qayb galaynaa
waana ku ixtiraamanaa cudurdaarkooda in orodada horyaalka imika bisha toonaad la qabanayna ka soo qayb galaan oo isku diyaariyaan barajeen insha Allah biidnillaahi kariim laakiin inta ka warqabada ciidan kasta laba ciyaaryahan baa u cararaya ama hal ciyaaryahan ciidanku ma waxa leedahay guud ahaan Soomaaliland hal ciyaaryahan ama laba ciyaaryahan way waayeen ciidamada dendamiska runtii anigu ma maamulo waxay naga mudnaa inaan u diirno codsiga u geyno inaan orodkaas jiro u bandhigno laakiin exceptional bay noqotay in cudur daatan dhaahdaan waanu weynay marka insha Allah waxa uu rajeenayaa inay ka soo qayb galaan kuwa dambe furitaanka tartankani oo la orday orodada kala 400 mitir iyo sidoo kale 800 mitir ayaa qaar kamid ah orodyahanadii kaalmaha koobaad labaad ilaa saddexaad galay oo aanu dareenkooda weydiinay ay rajo wanaagsan ka muujiyeen qaybaha hadhay tartankani alxamdulillah awlan allah mahad iskale marka labaad ana magacayga maxamed cabdiraxmaan abshir kooxda gaashaan team وكنا بحيك حالنت كوبت الحمد لله الله يا محضر إنه سكنت هاد بيان وفرحسن الحمد لله أيوة كذا ترتب محل الجنسة الحمد لله سياق له قول برجعنا إن شاء الله magacaygu waxa weeye maxamed khadir yuusuf waxaan ka qayb galay tartanka orodada waxaan ordayay ciidanka ilaalaha xeebaha alxamdulillah waxaan ka socday naadiga Bodir ama booliska waxaan ku soo baxay sarareebkii tartanka 400 كان تحت مقالة إن شاء الله وحالي فينال كي وحالي فينال راح نجيني كنت إن شاء الله. وقدمتي waxaa xusid mudan in tartankan oo noociisu ku cusub yahay Soomaaliland marka laga hadlayo dhanka in ciyaaryahanno kala matalaya ciidamadu ay tartamaan ayaa maalinta bariya la ciyaar doona wareegiisa labaad ama qaybtiisa labaad waxaana mas'uuliyiinta wasaaraddu sheegeen tartankan si joogto ah sanad kasta loo qaban doono Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Baal iyo Cabdiqani Booska wararka muqbahiya caalamka Soomaaliya Hargeysa